qaar ka mid ah culimada xaafadda afraad ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa bilaabay inay dayactir ku sameeyaan xabaalaha yeedhata ee magaalada Jigjiga. Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu qabtay madal lagaga hadlayay sidii looga hortagi lahaa xaalufka ku yimaada guud ahaan qaaradda Afrika. Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaashannada qiimaha iyo qadarinta mudan oo kuna soo dhawaada warka fiidnimo ee Shakaal TV oo idinkaga imanaya xarunta uu ku leeyahay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. warka fiidnimona waxaa habeennimadan caawa idinla socodsiin doona hadduu mawluhu qadaro anigoo ah Axmed Cabdiraxmaan Aadan Axmed Tudhi. qodobada aad warka fiidnimo ku daawan doontaana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah culimada diinka xaafadda afraad ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa bilaabay inay dayactir ku sameeyaan xabaalaha yeedhato ee ku yaala agagaarka saylada xoolaha ee magaalada Jigjiga. qaar ka mid ah culimada diinka iyo waxgaradka ku dhaqan xaafadda afraad ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxa ay bilaabeen inay dayactir ku sameeyaan xabaalaha yeedhato ee ku yaala agagaarka saylada xoolaha. waxa ayna culimadu bilaabeen inay xabaalaha dayr ku xidhaan maadaama ay xabaalahan yihiin kuwa buuxsamay oo qadiimi ah. sidoo kalena culimadu waxa ay si hordhaca u sii bilaabeen shaqadan iyaga oo soo dhigay in ka badan 30 luud oo dhagaxa. sidoo kalena haatan ay bilaabi doonaan shaqada xidhitaanka deyrka xabaalaha. ugu horreyn waxa xabaalahan iyo dayaca haysta ka waramay gudoomiyaha guddiga iskood isku xilqaamay ee dayactiraya xabaalaha yeedhato ee ku dhaqan xaafadda afraad ee maamulka magaalada Jigjiga, Sheekh Axmed Cismaan Daahir. xabaalahan taariikhdooda intaanan dhalan ayaa maaragtay xabaalahan ay jireen. xabaalahan kolkii aan taariikhda aan dib u eegana waxay ahaayeen xabaalahani xabaalo lagu aasi jiray jigjigadii hore dadkii masaakiinta ahaa. dadka masaakiinta iyo dadka musaafirka ee magaalada Jigjiga ku dhinta ayaa lagu aasi jiray iyo caruurta yaryarka ah. marka sidaa darteed xabaalo waxay iska ahaan jireen dadka caynkaasa lagu aasi jiray. dadka waaweyna xabaalaha magaalada Jigjiga ku dhintana Sheekh Cali Kuura la geyn jiray. saasay taariikhdoodu tahay xabaalahan. abaabulkana samaynay annaga is abaabulay guddi baan dhisannay. guddiga aan dhisannayna aniga gudoomiye ka guddiga waxaan isku abaabulay inaan annagu horta isku tashanno oo ficilkii la nimaadno oo annagu aan bilowno shaqadii. marka sidaa darteed qushaashkii xoolaha baktiga wax walba waa la keenaa ma garatay. marka sidaa darteed annagii jaar ahaan kolkaan u adkaysan weyna abaabulkaasaan samaynay. dadka muslimiinta waxaan u soo bandhignay maadaama annagu aan ma aragtay ay naga go'an tahay inaan xabaalaha dhisno. ta kale ee dhibaatada labaad ee xabaalaha ku dhacday waxa weeyaan laag weyn baa ag marta. laagtaa weyn xabaalihii bay gaadhay way guraysaa dadkii. dhanka kale qaar ka mid ah culimada iyo waxgaradka ku dhaqan xaafadda afraad ee maamulka magaalada Jigjiga ee ay xabaalahani ku yaalaan ayaa bulshada muxsiniinta ee ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo dhammaanba caalamka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha deyrkana lagu dayactirayo xabaalaha yeedhata ee ku yaala magaalada Jigjiga, gaar ahaan xaafadda afraad ee maamulka magaalada. xabaalahan ma taqaanaa in badan madris laha وإنكم لتمرون عليهم بالليل مصبحين وبالليل بأنكم كجرايو أروري هي ما ظلم رايو dhibaatada si gaar ah aan is taabata. marka dadka shacabka ma taqaana xooyaan dadka soo abaabulay dadka kamid ah insha Allah bidina karim. marka insha Allah dadka muslimiinta waxaan ka codsanaa hadiya jeer si ma taqaana guddiga horeba ay ma taqaana in la wadaageen ina dadka muslimiinta meel kasta ay joogan dhibaatadaas ay ka wada qayb qaataan insha Allah bidina karim. wax baxaydan ogeyn baan anagu ognahay qaylaanahay insha Allah. qaylada dadka muslimiinta ma taqaana inay baaqa ka soo jawaabaan oo ma taqaana insha Allah bidina soo asturan xabaalahan iyo kuwa kale ma taqaana sidaan kala u dayacmeen inay soo asturan ay tani kow ka tahay taasha insha Allah inta ka codsanayna. xabaalahan baaxadda ay ku fadhiyaan waa 1600 oo mitir isku weer weeyaan. waa 1600 oo mitir isku weer. 400 oo mitir isku weer waraar baa ka dilaacay. siday walaaluhuba sheegeen waxaad arkaysaa waraar ka dilaacay lafihii dadka oo gidaarka ka soo dhex muuqda ayaad arkaysaa. waa dhibaatooyinka nakiciyey ee dareenka nagu beeray weeyaan. inta kalena waxay noqotay qashin qub iyo meel masbalo oo qashinka loo soo foofiyo waxa xun oo dhan lala dhex yimaada ayay noqotay. taas baa nagu abuurtay inaan dareen yeelano oo kacno oon annaguna is-aasaasno oon guddi samayno bulshada muslimka ana aan la wadaagno. taas waa sidaa. ta kale waxaan baaq u dirayaa bulshada muslimiinta ah meel walba oy joogaan dal iyo dibadba. magaalada Jigjiga kuwa jooga iyo magaalooyinka kale ee deegaanka iyo dalkaba kuwa jooga iyo kuwa dibadda jooga intaba baaq ayaan u dirayaa dadka muxsiniinta
inay ka soo qayb qaataan asturidda xabaalahan meesha ku dayacan een hawshooda bilownay. ugu dambeyntii baaqaas ay culimmadu direen waxaa qayb ka ahaa hoggaanka masaajidda awqaafta iyo qubuuraha ee xafiiska maamulka magaalada Jigjiga Sheekh Cabdinaasir Ibraahim Cumar oo isaguna baaqaas qayb ka ahaa sidoo kalena ku hadlayay afka xafiiska golaha arrimaha islaamka ee maamulka magaalada Jigjiga. sidaa darteed xabaalahan laba arrimood baa haysta mid waxay la qabaan xabaalaha magaalada ku yaalla qaybo ka mid a xabaalihiina waad ogsoontihiin dayr male dhammaantood waxaan u malayn 3 xabaalood mise 2 xabaalood oo Sheekh Shariif iyo dayr leh oo muslimiintu iska kaashadeen xabaalahan waxaa haysta dhinac waraar baa gooyay saad ka arki doontaan miidiyaha oo xabaalihii la baxay dad ka mid oo lafihii aanu aragnay soo laalaadaan waraarkaas oo u baahan awood fara badan iyo iskaashi dhinaca kale waxaa lagu tuurayaa wixii xabaalaha kale ee qaybaha kale ay la qabeen oo qashinkii neefkii baktiyey saxaradii qurunkii xumaantii baa lala aadayaa waana hooygeennii dhabta ahaa xaqiiqa ahaan weeye waxaan u baahannahay oon cod dheer iyo cod gaabanba halkan idiin soo marinaya muslimiinta dal iyo dibadba in ay walaalaha isxilqaamay ee guddiga ah ee xafiiskuna og yahay hawshooda ee sharciyeeyey ee boodhkoodu halka aad ka arki doontaan inay hawsha isu xil saareen muddo waxqabadkoodii aan 10 cisho ka badnayn bay hadda waxay marayaan 30 lowr oo dhagax inay dhigeen saad ka arki doontaan miidiyaha waxaanan isleeyahay xabaalaha hawsha taallay waa hawl ballaaran in laga qabtaay laakiin waxa awooddaas oo dhan ka weyn oo ka xoog badan isu tagga muslimiinta iyo midaynta xuduudda ayaa ka badan waxaan la awoodi karinna ma jiro waxaan leenahay intilaaqan liqowlihi tacaala wa tacaawanuu cala albirri wa taqwa inagoo halkaa ka amba qaadayna inaynu wanaagga isu kaalmaysanno iyo khayrka wanaag ka horreeyaana ma jiro walaalaheenni inaga horreeyey inaan daryeello oo aad u dayacan xaqiiqa ahaan xuquuq bay inagu leeyihiin qofku xayan aw mayitan hadduu nool yahay hadduu dhintayba qofka muslimkii xaq buu leeyahay si gaara qofka nooli xaqiisuu sheegan ama qofka dadkan amwaadda dhintay xaqoodii maanta innaga ayna saaran tahay qoladaa guddiga iyo dadkaas xilqaamay inaan gacan siino waxaa saylada xoolaha ee magaalada Jigjiga laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado sida uu faahfaahinta warkaasi inoogu hayo wariyahayaga Axmed Kuweshin iyadoo guud ahaanba maalmihii u dambeeyay laga dareemiyay gudaha magaalada Jigjiga kor u kaca ku yimid dhanka qiimaha maciishada la kala siista qaybaheeda kala duwan ayaan maanta u kuurgalay saylada xoolaha ee magaalada Jigjiga si aan wax uga ogaano kororka ku yimid dhanka qiimaha xoolaha nool ee loo iibka keena saylada dilaalinta ku hawlan kala iibinta xoolaha iibsadaha iyo sidoo kale baybiyaha iyo dhankooda dadka u iibka keena xoolaha saylada magaalada Jigjiga ayaa si wada jir nooga warbixiyay dhaqdhaqaaqa waqti xaadirkan la kala siisto qiimaha saylada xoolaha magaalada Jigjiga كله aad baa u kacsan yihiin xooluhu ma garanaysaa aad iyo aad ayay ma garanaysaa ay u kacsan yihiin baahani waxa ma gadan karo kii haystayna wax badan ma soo gadan karo waxay saylada u baahan tahay maciishada Soomaalida in maciishada laga jabiyo u baahan tahay xooluhu markaa way soo noqonayaan saas ay walaaluhu ku walaaloobayaan marka haddaba wixii aad maanta sayladan aad ka hesha biilka xaaska waxba kuuguma filla neefkii wixii aad ka hesha neef baad halkan ka soo qaban oo iibsan neefkii qaali baa siisan kuwii adiga ka iibsanayay waxay ku dhahayaan annagu hilibkii wixii kuwii qaloodiga ee qalqalanayay waxay leeyihiin hilibkii wax naga iibsadayba ma jiro hilibkii kalaaba sidaa noogu yaalla bay leeyihiin waana runtooda hilib nin raashin helaba hilib qaadan marka haddaba sayladu siday tahay waa sidan aad arkaysaan weeye hadda neefkan haddii hadda layga iibsanayo hadda waxay laygu yidhi 7,000 orgiga aad arkayso 7,000 bay yidhaaheen 7,000 tee waxbaba ma galayso marka sayladu waa kuleyl waa dab waxa weeyaan lama gaari karo xoolaha waka neef baan doonaya neefkii waan laahay samadaas la geeyay neef beer ay imka dhashay waxana laga siinayaa 2,000 oo riyaal bay leeyihiin waxa yaray hooyadii shaqay waka xasaba la isleeyay ya xasaba la isleeyay waxa sababay sixir bararka suuqa ka jooga iyo sababay sixir barba suuqa ka jooga sharciga ku qaaliyoobay miigina waxa ma qodanaya waxa magaaladu cunaya marka taasaa keentay rabshadahan iyo adduunka ka socda iyo wixii hadii la yiraahdo meelahan dagaal sokeeyo iyo dagaalo kale oo adduun weynaha ka socdayba waxa ugu wacan isneerno kolkaan saa weegnay sarakacan ku yimid dhanka qiimaha la kala siisto xoolaha saylada magaalada Jigjiga loo iibka keeno ayaa loo sababeynaya kororka iyo baaxadda qiimaha doolarka iyo guud ahaanba colaadaha ka aloosan caalamka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaa lagu qabtay madal lagaga hadlayay sidii looga hortagi lahaa xaalufka ku yimaada qaaradda Afrika sida uu faahfaahinta warkaasi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdixakiin Rijaal
kulan dib loogu eegayo waxqabadka derbiga cagaaran ee Afrika ayaa ka socda madasha kulamada midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa waxaana mashruucani aadka u ballaaran ujeedadiisu tahay isla markaana lagu sheegay in lagu beero 8,000 oo kiiloomitir oo kayn ah gobol kasta oo ka mid ah deegaanadaasi shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday midowga Afrika ku-xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda kaymaha Itoobiya wakiilo ka socday komishinka midowga Afrika iyo sidoo kale xubnaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga dhaqaalaha buluuga ah iyo deegaanada joogtada ah daneeyayaasha heer qaran iyo heer caalami ee ka shaqeeya dhirta ilaalinta deegaanka iyo horumarinta cagaaran hindisahan oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee midowga Afrika waxa uu soo bilowday 2007 sida ku cad jadwalka ujeedadiisana waxaa lagu sheegay in laga hortago fidinta saxaraha isla markaana la hirgeliyo horumarinta iyo dhaqaalaha cagaaran ee wadamada gobolka waxa kale oo bayaankani lagu sheegay in hay'adaha horumarinta hay'adaha caalamiga ah iyo dalal kala duwan ay taageero dhaqaale ku bixiyeen hirgelinta hindisaha cagaaran Itoobiya ayaana ka mid ah dalalka Afrika ee hindisaha aasaasay isla markaana heshiis ka saxeexay waxaana laga hirgeliyay 58 degmo oo ka kala tirsan gobolada Axmaarada gobolka Tigreega iyo gobolka Canfarta kuwaas oo laga beeray hektar badan oo cagaarinta waxaana la sheegay in shaqada laga wado degmooyinka ay awood u leeyihiin in dib loo dhireeyo 13 hektar oo dhul xaaluf ah ujeedada kulankani ayaa lagu sheegay in si guud looga wado hortago xaalufka dhirta isla markaana la cagaariyo goob kasta oo ka mid ah qaaradda Afrika Itoobiya ayaana lagu ammaanay inay ka mid tahay wadamada hirgeliyay cagaarinta isla markaana sanooyinkii u dambeeyay laga hirgeliyay wakiilka u qaabilsan qaramada midoobay barnaamijka cuntada ayaa kulan la yeeshay wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya sida uu mar kale faafahinta warkaasi inoogu eegayo wariyahayaga Cabdixakiin Rijaal wasiir dawlaha arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay isla markaana kulan kula qaatay wakiilka hay'adda UNDP ee barnaamijka horumarinta safiirka oo kulankani ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Itoobiya ay muhiimad gaar ah siinayso xiriirka kala dhaxeeya hay'adda UNDP waxa kale oo xusay in hay'adaha qaramada midoobay oo qaabilsan horumarinta barnaamijyada ay aqoonsan tahay doorka dalka ee kordhinta tayada hay'adaha kala duwan wakiilka barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay waxa uu dooda ku sheegay in urur ahaan ay si dhow ula shaqeynayaan guddiga doorashooyinka qaranka sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sidoo kale sheegeen in xiriirka ka dhaxeeya hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan horumarinta iyo dawladda uu yahay mid wax ku ool ah wasiir dawlaha ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ammaanay isla markaana uu sheegay in hoggaanka gaarka ah ee wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan barnaamijyada uu garanayo in ka badan 4 sano isla markaana ay ka wada shaqeeyeen atayeynta hay'adaha kala duwan ee dalka Itoobiya waxa uu sheegay in xilka maanta uu ka degayo uu yahay mid la tabi doono isla markaana waxa uu u rajeeyay in uu helo hawlo fudud iyo mustaqbal wanaagsan gudoomiyaha degmada Kaxda mudan ee Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xadhiga ka jaray wado jay ah oo laga hirgeliyay waaxda saddexaad ee Cumar Fiyaasko ee degmada Kaxda رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وحام هذا إلهي نبض اسمه كان كاني وحانو مهد علينا يا كو وضياش الرقنك الدجمدة واحدة صدحات علماء ذا وحقرت كودا يهويوي كودا يا أردي ذا نقصو نويسي واحدة صدحات وددان ما أنت أن كحرك جرينه وحام هذا له waxaa kaloo maad celinayaa ciidamada qaranka ee maalimaha suurtageliyay wadadan in laga shaqeeyo amnigeeda waxaa u maad celinayaa ciidamada amniga ee markasta u heelan in wadooyinkan ummadda loo furo amnigeedana laga shaqeeyo waxaa u maad celinayaa maamulka waaxda saddexaad ee Cumar Fiyaasko
waxaan u mahad celinayaa taliyaha minishiibiyada oo intii waddadan socotay wandhay aan ka maqnaanin waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhallinyaradii guddoomiye waaxeedku madaxda u ahaa ee xafiisyada degmada ka socday iyagana waan u mahad celinayaa waxaase sharaf ah inay waddadan in la furo inay ka timaadday bulshada waaxda deggan laanta saddexaad ee cumar fiyaasko iyagaa noo imaaday iyagaa codsaday waddadan 1 kiiloomitir ku dhow waxaa adkaatay inay hooyo marto oo mula la mariyo oday waayeeloo xanuunsan mari waayo adeeggii bulshada u gudbi waayo waa waddo muhiim u ah bulshada waxayna isku xirtaa xarunta xafiiska degmada Kaxda iyo waaxda iyadoo laamida ka soo dhacda waddadaas maanta ayaan uga xamdiyeynaa way furanta waxaan rabnaa oon halkan baaq uga dirayaa dhammaan 4 waaxood ee kale degmadu waa 5 waaxood inay ku daydaan guddoomiye waaxeedkan odayaasha dhaqanka ee 4 waaxood ee kala deganna ay ku daydaan odayaasha dhaqanka ee Cumar Fiyaasko iyo hooyooyinka reer Cumar Fiyaasko waaxda saddexaad maanta waxayna barayaan in waddooyinka la furan karo jeebkaagana lagu tashan karo kabacdina ay bulshadu waddada si qurux badan u mari karto waxaa nagu hogaamiye oo wakiil uga nahay shaqadan guddoomiye Madaale waa ogtihiin markuu imaaday wuxuu dhagax dhigay waddada ex control iyo Kaxda isku xirta maanta waa gabagabo haddana wuxuu dhagax dhigay dhammaystirka waddada degmada Kaxda oo 4 kiiloomitir dhisnayd dhammaystirkeeda si ugu soo rido waddadan afgooye laamida afgooye inuu ku soo rido oo hadda odaygu waa sheegayay lahaa hana loo dhammaystiro waxaan ballan qaadaynaa waddada waa la dhammaystiraa guddoomiyaha gobolkuna waa ballan qaaday waxaana lagu keeni doonaa laamidan aan hadda taagannaha way imaan doontaa haddaba guddoomiyuhu wuxuu laami ka dhigi karaa waddo furan oo jid ah annaga haddaba hurudhacaan nahay waddooyinka xiranaan furaynaa jayaan ka dhigaynaa markaan qurxinnana waxaan ku celinaynaa guddoomiyaha gobolka iyo bulshada iskaashataa iyaguna waxay ka dhigan doonaa interlog maanta jay ay taagantahay beri interlog aynaga rabnaa waxaa kaloo baaq u dirayaa degmada Kaxda bulshada degan fadlan ka guur jidka intaan lagu imaan si guddoomiyaha arrimaha bulshada u sheegay jidadka degmada intaan ka badan inay xiraadaan ma ogolin ciidamada amnigu waa ku dhib qabaan waaxyaha qaar markay amniga sugayaan waa noo soo gudbiyaan waxay leeyihiin waa hebel laan hebel lama geli karo halis badanaa ka jirta waddada ha la furo qolada caafimaadka ambalaaska waddaa sidoo kale madaxda maamulka degmadu markuu rabo waddooyinka inuu tago sidoo kale haddaba maanta waxaan rajaynaa waddo dambe oo xiran degmada Kaxda oo bulsha degan tahay aan la arkin ha lagu daydo qoysaskii waddadan deganaa ee iyagu ka guuray ha lagu daydo odayaasha waaxda sida ay dadka ugu qanciyaan waddada inay muhiim tahay oo loo furo acdu طariiqa xaqaha uu nabigu lahaa in la degay iska dhaafe qodaxda in laga qaadaa waajib ahayd haddaba jidadkii degmada haddii la dego xaggee wax ku kala soconayaan hooyada umushaa xaggee la marinaa qofka xanuunsan xagguu maraa bulshada iyadaa la rabaa inay isdhisto maanta farxaday noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad inay waax ka mida waaxyaha ay ku dhiirato inay waddo adkayd in la furo si dhib yar ay u furaan ood arkaysaan quruxdeeda waxaa kaloo arki jirta markaa meelo la furaayo inta badan waxaa imaan jirta odayaal iyo dumar kale iyo maanta ardayaa joogta ardayda joogtaa waxay ku faraxsan tahay inay bajaaj intay qaataan gurigooda ku tagaan meeshii shalay ay luuqluuq ka baxayeen ardaydaa sharafta leh ee welibana ubixii dalka in waddo la furay inay ku faraxsan yihiin oo ay gartaan ilmo 8 jir oo dugsi hoose iyo dugsi dhexe dhigta waddada farxadeeda oo uu garan waayo oday waayeel ah ama qof mas'uul oo degmada degan waa ceeb waa shim waa ceeb waxaa maanta farxadda ugu badan ka helaynaa iyo soo dhoweynta waa arday dugsi hoose dhexe sare dhigata waa waxay ku faraxsan yihiin interest ay heleen ma aha waa waddo guryahooda tagta oo loo furay sida kuwaas ugu faraxsan yihiin oday hooyo ugu farax oo waddada ka guur fadlan waddada bannee intaan lagu imaan adigu waddada bannee adigu waddada fur adigu waddada wax ka dhis adigu waddada ka qayb qaado fadlan waddooyinka ha la furo maamulka degmada
gudoomiyaha amniga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada xoghayaha maanta laga bilaabo shaqadan way bilaabatay ee dhammaad ma aha waxaan ka codsanayaa madaxda maamulka degmada Kaxda ee ku-xigeenada iyo xogayaha iyo laamaha iyo muxuu ahaa ii sheeg tabeelayaasha iyo qof kastoo maamulka ka tirsanow bulshada dhiiri geli bulshada u sheega inay wadadu dan u tahay deegaan iyo nolol say odayaashu u sheegeen waxaa ugu horeysa in wada la helo markaasaa caafimaad la helaa markaasaa waxbarasho la helaa markaasaa nolol la helaa jidku isagaa nolol ah haddaba dhulku xataa waa kana adeer wuxuu leeyahay dhulkii saaka waa noo qaaliyooba waddadan markii la furay booskii shalay barays ku joogay midaan haynu maanta joogaa war akhara ajriyaad ka helaysaan haddaad waddo furtaan adduun akhara ajriyaad ka helaysaan adduunkana ribxi baad ka helaysaan dhulkiina iniigu qaaliyoobaaya idinkuna caafimaadkiina iyo baabuurtiina la gelaysaan shalay waddadan bajaaj ma geli karin mooto ma geli karin qofnana ma mari karin haddaba waxaan u soconnaa inaan ka guuro waddo xiran oon u guuro waddo furan qof kasta taasaa ka rabaa maanta waa dhammaadka waddo xiran maanta waa dhammaadka waddo xiran oo degmada Kaxda ku taalla waana bilowga waddo furista degmada Kaxda waxaan rabnaa inaan u guuro interlog oo ka guuro muxuu ahaa jay adaana suurtagelin kara aabba hooyo walaalayaal dawladnimada la inii sheegayaa waa shacabka iyo dawlad is haysata ayaa wadana furi karta deegaanna qurxin karta dawladnimada ka shaqayn karta intaa waxaa ku dara reer Kaxda waxaan kaloo codsi u ahay in maamulka degmada lala shaqeeyo oo si dhaba loola shaqeeyo oo dantiina wadaana la shaqeysaan waxaan kaloo codsanaa sidaas si lamid ah in laamaha amniga lala shaqeeyo laamaha amnigu waa nolol hooy bulshooy amnigu waa nolol laamaha amniga maalinkaan imaanayna guri inaad dhisataan adeer makhraatu ka waa adkayd maalinka imaahayna qori kasta waa socday saraakiisha sharafta leh ee maanta alaamaha amniga ee noo suurtagelisay inaan wadooyin furro oo noo suurtagelisay inaan muxuu ku dhiirano inaan noloshii dadka bulshada dib u soo celino waa amnigaana aan adkaysano cid kasto amniga dib ku haysana laamaha amniga aan u gudbino hadda waxaan codsanina laamaha amniga hala shaqeeyo maamulka hala shaqeeyo hala wada shaqeeyo bilowga wada furistana waa bilowga wada furista ka guur gudo fadlan muwaadin ka guur wadada ka guur inta lagu imaan waa ku celceliha bariha qaylinin adu ka guur wadada hadaa ka guuri weydo waa laga raraa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hagaaga daawadayaal qodobkaasina waxa uu gun iyo gunaanadu ahaa warkii fiidnimo oo aad kala socoteen Shakaal TV xili tabinteena wareed waxaana warka idin qaada dhigayay anigoo ah Axmed Cabdiraxmaan Aadan Axmed Tudhi warka xiga intaan ku kulmi doono waa aniga iyo dhammaan bahda Shakaal TV oo isku duuban idin leh sidaas iyo assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh